Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Ereteriya. Farmaajo oo muddo 3 cisho ah dalkaasi joogi doona ayaa casuumad rasmi ah ka helay dhiggiisa Ereteriya Isaias Afwerki. Madaxa warfaafinta Villa Soomaaliya Cabdinuur Maxamed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Soomaaliya diyaar u tahay inay furato bog cusub oo ku aaddan xiriirka ay la leedahay dalkaasi Ereteriya. Cabdinuur ayaa sheegay in booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda ee maanta ay albaabada u fureyso xiriir diblomaasiyadeed iyo iskaashi oo ay yeeshaan labada dhinac. Booqashada madaxweynaha ayaa timid kadib markii heshiis taariikhi ah uu dhex maray wadamada Itoobiya iyo Ereteriya, kaas oo ay ku soo afjareen colaadda ka dhexeysay muddada dheer ee 20 sano. Colaadda ka dhexeysa Ereteriya iyo Itoobiya ayaa saameysay Soomaaliya. Ereteriya ayaa iyaga kasoo horjeeday faragelinta Itoobiya ee Soomaaliya, waxay taageero siisay maxkamadda Islaamiga ah ee muddada kooban ka talin jiray bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Qaramada Midoobay ayaa Ereteriya saartay cunaqabatayn kadib markii lagu eedeeyay inay xasilooni darro ka wado gobolka Geeska Afrika. Ereteriya taasi ay beenisay.